bartamihii 2017 dunidu waxay gashay xaalad degdeg ah. UK, Frankfurt, Dortmund waxay dhammaantoodba soo wajahday arrin ugub ku ahayd xilligaas. Shirkadaha kuwa bankiyada caalamka ayaa ayagoo istaagay gebi ahaanba kana maqnaay saacado kooban internetka. Maxaa sababay? Sidee ay wax u dhaceen? Maxaase qaldamay? waxaan kaaga jawaabayaa muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay noo soo biir, haddii aad hore noola joogtina waad ku mahadsan tahay. dowladuhu ay cyber security-kooda ayna ku jaawararsan yihiin sida ay wax u dhacaan. waxaa jiray injineer ku takhasusay dhinaca iyo cyber security-ka, isaga oo raadinaya habka ugu dabacsan uu ku damin karo uu la tacaali karo fayraska dhaxeeyo nidaamka caalamka ee dijitaalka ah. Marcus Hunter wuxuu ahaa 22 jirka. ma uusan ahayn qofka ka tirsan CIA-da, mana ahayn mid u shaqeeya FBI-da. wuxuu ahaa injineer jecel koodka iyo cyber security-ka. Marcus wuxuu helay hal nuqul oo ka muuqda fayraska, kaasoo ka mid ahay kuwa sistemyada caalamka kuwa mamnuucay. in ka badan 3 saacadood wuxuu bilaabay in loo kala yareeyo ama uu u kala qaybiyo dhowr noocood. tusaale, DNA-da fayraska si uu u ogaado meesha laga keenay, sida sistemka fayraska loogu abuuray, asoo garan laasan soo u daciifiyo xaaladda baahsan iyo fayraska ku baahay shirkadaha teknolojiyada iyo wax kastoo ku shaqeeya elektarooniga caalamiga ah. halkan ayuu ka helay sirta ugu weyneed uu qofna arkin. Marcus wuxuu ogolaaday in hackerska fayraska dhexdiisa, wuxuuna isweydiiyey maxaa dhacaya haddii aan iibsado websaytyada kombiyuutarada adduunka u shaqeeya ama ay ku jiraan xogaha ugu muhiimsan maskaxda caalamka wareejisa $10. Marcus wuxuu iibsaday magacaas isla ilbiriqsiyo gudahood. fayraskii adduunka gubayay ama gebi ahaanba madoobayay wax kasta oo ku shaqeeya technological ah. cyber attack-gii ugu weynaa ninkii ka badbaadiyey markii la eego farsamooyinkii cajiibka ahay uu ku maran hawaabayay hackerska u soo dhacay sistemka adduunka kumayna dhammaan. Marcus wuxuu u safray Las Vegas si lagu dabaaldego, isagoo garoonka diyaaradaha jooga oona raba inuu gurigiisa ku laabta. waxaa dhacday arrin filiwaa ku noqotay Marcus markii FBI-da ay istaajiyeen kuna eedeeyeen inuu jiro qaladka, kaasoo asagana ugu horseeday khalada kale. dadka qaarkood waxay u malaynayaan in badbaadinta uu badbaadiyey nidaamka dijitaalka ah in la siin doono abaalmarin. FBI-da waxay gacanta ay u geliyeen kaatinada, waxayna halkaas ku soo jeebeeyeen Marcus dhacdooyinkii u dambeeyey ee dunida, dhacdooyinka hackerska, dhacdooyinka sheekooyinka iyo dhammaan dhacdooyinka caalamka. haddii aad xiisayso nagu soo biir oo ka mid noqo